Dirisa. Kwa nyumba hiyo. Nyumba hapo. Dirisa gani? Hapa ndani hapo. Toka. dagaalkan oo ahaa mid diryankiisa laga maqlayay meelo badan oo kamid ah magaalada Muqdisho ayaa yimid ka gadaal markii ay ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ay weeraro kadisa ku qaadeen kulana wareegeen fariisimo ay xarakada al-shabaab ku lahaayeen degmada Boondere ee gobolka Banaadir. telefishinka Universal oo booqda goobihii ay saaka dagaalada ka dhaceen ayaa waxaa noo suuro gashay inaan wareysano gaashaan la dhexe Umar Cali Cadow oo kamid ah saraakiishii hogaaminaysay dagaalkaasi isagoo telefishinka Universal uga warbixiyay goobaha ay la wareegeen. waa ilaahay mahadiisa dawad arkaysaan waxay gaareen ciidanka dawladda iyo kuwa AMISOM oo isbiirsanaya saaka guushaan ay gaareen waxay dhamaan gacanta ku hayaan degmada Boondere oo ay waxarsan tahay in yar oo sidii masaajidkii Sheekh Abuukar oo kale iyo qaybo yara uga harsan waxaad u jeedaa waa isku iskimaana booliyo waxa ku muuqanaya masaajidkii Xaaji Ibro baa ku aad joogtaa waxaa ku muuqanaya guriga la yiraahdo Reecasir waxaa ku muuqanaya guriga Abuukar Elias waxaad soo marteen nimankan dhulka ay dhaawac u geysteen oo baabi'iyeen oo godadka ka jeexeen oo ay dhibaateeyeen. mar uu TV-ga Universal weydiiyay gaashaan la dhexe Umar qasaaraha dhinacooda ka soo gaaray dagaalka ayuu ku jawaabay waxa ilaahay mahadiisa askariya gacan wax yar oo firiri ka gaareen ciidanka dawladda haba yaraadeen wax kala problem oo ay la kulmeen ma jiraan waxay taabteen guul waxay qaadeen talaabo waxay qaadeen horu socod waxa ku muuqanaya maana booliyo waxaan rajaynayaa inaad nagu soo booqan doontaan haddii ilaahay nafta nagu simo meel ka fog maha dadka Soomaaliyeedna ay ku farxi doonaan. gudoomiyaha degmada Boondere Cabdulaahi Xirse Wardheere oo ku sugnaa jiida hore ee dagaalka ayaa xilli ay rasaastu aad u dhacaysay telefishinka Universal uga warbixiyay dagaalka oo markaasi soconayay iyo waliba goobihii ka tirsanaa Boondere ee ay ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM kala wareegeen xarakada al-shabaab. bismillaahir rahmaanir rahiim dagaalku waxa qaaday ciidamada dawladda iyo AMISOM oo ka bartanaya waxay la gaareen guulo wanaagsan waa u jeedaa dhifaysiga laga bixiyay waaweynkooda iyo dhibaatada u geysteen dadka shacabka guriyahooda iyo meydkooda wadaastay marka waxa u jeedaa guul wanaagsan oo ayaa la gaaray dhinacayna dhaawac moogay wax dhimasho ma jiraan ayaga salaam meydkooda meel kasta yaala hadda wili maxaa tigin ayaga aanan tigina jiro ma arko meydkooda dhex yaalo iyo dhaawacooda la carareen hub fara badan waa laga furtay dhifaysiga waa laga qabtay ma sha Allah waxaan gaarnay guul wanaagsan oo lagu faan karo magarad. intii aanu ku sugnayn goobihii uu maanta dagaalka ka dhacay ayaa waxa ay indhaha iyagu qabteen meedadka laba dhalinyaro ah oo sida lagu sheegay kamid ahaa xarakada al-shabaab oo lagu dilay dagaalka iyadoo burbur aad u daran uu soo gaaray guryaha